بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qobanaha qodobada aan idin kugu haynana waxa kamid ah militariga Mareykanka oo caawa qirtay qasaaro hor leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ciidamadooda ka soo gaaray weerarada sawaariikhda iyo diyaaradaha droniska ee Iran Mareykanka oo ku wargeliyay Israa'iil in uu xoojin doono weerarada ka dhanka ah Iran Trump oo si la yaab leh oo carag ku abuurtay gudaha dadka Mareykanka uga hadlay askarta looga laayay colaadan Iran ay kula jiraan Mareykanka oo muujiyay inuu u ogolaanayo Sacuudiga in uu kobciyo uraniumka nuclearka haddaba arrintan maxay uga macno tahay dunida iyo gobolka bariga dhexe warbixin ayaan idinkaga haynaa amuurtan faahfaahin ka soo baxaysa sababaha Netanyahu uga baaqday safar uu ku tagi lahaa Washington tirada dadka ku dhintay iyo dadka la ildaran cudurka Ebola oo korortay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay aroos ka dhacay dalka Turkiga tuulo ku taal oo hadiyad ahaan loo keenay 35 ida ah iyo lacag 6 milyan oo liirada waddanka Turkiga ah sheeko cajiib ah oo xiiso leh oo amurtan ku saabsan ayaan idin haynaa dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka soo dhawaada markale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waanu gudbi doonaa gordhow wararka bariga dhexe xaalka caawo cirka ayuu ku laran yahay laakiin isla wararka bariga dhexe dhanka dagaalada ma ahane waxaynu aadaynaa war weyn oo soo baxay saacadihii u dambeeyey kaasi oo muujinaya in Sacuudiga uu ku biiri karo quwadaha bacrimiya uraniumka nuclearka loo adeegsado haddaba warkaas haddii aynu ku sii soconno dowladda waddanka Mareykanka ayaa si hore dhaca ugu ogolaatay Saudi Arabia inay gudaha dalka ku kobciso uraniumka loogu talagalay barnaamijkeeda tamarta nuclearka rayidka iyadoo heshiiska weli uu ku xiran yahay saxiixa madaxweyne Donald Trump sida uu tabiyay telefishinka CNN ee Mareykanka laga leeyahay heshiiskan haddii la ansixiyo wuxuu noqon karaa isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda Mareykanka ee ka hortagga faafitaanka hubka nuclearka Washington ayaa muddo dheer dalalka heli kara teknolojiyadda nuclearka ka dalbanaysay inay aqbalaan xanibaado adag iyo kormeer caalami ah uraniumka si hoose loo kobciyo waxaa loo adeegsadaa shidaalka warshadaha korontada nuclearka ha yeeshee isla teknolojiyadaasi ayaa lagu gaari karaa heerar sare oo loo adeegsan karo samaynta hub nuclear taas oo dhalisay walaac dhinaca ammaanka ah Saudi Arabia waxay sheegtay inay doonayso in ay ballaariso ilaha tamarta yarayso ku tiirsanaanta dhaqaalaha ka soo gala shidaalka isla markaasna ka faa'iideysato kaydkeeda uraniumka Riyadh waxay sidoo kale ku dooday in haddii Iran loo ogolaado kobcinta uraniumka iyadoo la kormeerayo Sacuudigana xaq u leeyahay barnaamij nuclear oo rayid oo lamid ah kan Iran qobarada xakamaynta hubka iyo qaar ka mid ah xubnaha Koongareeska Mareykanka ayaa ka digay in ogolaanshaha Sacuudiga uu siin karo awood farsamo oo mustaqbalka ay ku horumarin karto hub nuclear isla markaasna uu dhiirigelin karo tartan nuclear oo ka dhaca gobolka bariga dhexe haddii Trump uu saxiixo heshiiskan waxa loo gudbin doonaa Koongareeska Mareykanka iyo in dib u eegis lagu sameeyo iyadoo sidoo kalena ay si dhow ula socon doonto hay'adda tamarta atomikada caalamiga ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA waxa kaloo laga yaabaa inay dalbadaan xog dheeraad ah iyo la socod Iran iyo Israa'iil وهجاج
wixii ku soo kordha warkan waynu arki doonaa وهاجاك إمك براين حجاسي قارد أفريقيا إجنو كارهن عذرك إيبولا أو ودك جمهورية ديمقراطية كونغو كسي فيدايا ترى dadka sida rasmiga loo xaqiijiyay cudurka in ay qabaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa gaartay 2267 qof halka 893 qof ay u dhinteen cudurka sida lagu sheegay warbixintii u dambeysay ee dawladdu ay shaacisay fiidnimadii Sabtida xogtan ayaa muujinaysa xaaladda cudurka ilaa iyo maalintii Jimcaha iyadoo la diiwaan geliyay 86 kiis oo cusub iyo 29 dhimasho oo cusub muddo 24 saac gudahooda mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka Ebola ay wali socdaan inkastoo cudurka uu sii wado inuu ku faafo deegaano cusub kooxaha caafimaadka ayaa xoojinaya baaritaanada raadraaca dadka lala xiriiray bukaanada iyo wacyigelinta bulshada si loo yareeyo halista isu gudbinta fayraska hay'adda caafimaadka caalamiga ayaa sidoo kale ka digaytay in baahida dhaqaale iyo agab caafimaad ay wali caqabad weyn ku tahay in laga hortago cudurkan faafitaankiisa waxaana lagu baaqay taageero dheeraad ah si loo dardargeliyo jawaabta ka dhanka cudurka waxaa sidoo kale la adkeeyay muhiimadda aasidda badbaadada leh ee dadka u dhintay Ebola iyo in bulshada lagu dhiirigeliyo inay si degdeg ah u raadsadaan daryeel caafimaad marka calaamadaha cudurku ay ka soo baxaan warbixinta ayaa muujinaysa in xaaladda Ebola ee Congo ay wali ay tahay mid walaac leh iyadoo mas'uuliyiinta caafimaadku ay ku boorinayaan shacabka inay raacaan tilmaamaha caafimaadka si loo xakameeyo faafitaanka cudurka وهاجاك wararkaasna intaas aynu kaga gudubno waxaan gordhow u leexanaynaa dhanka gobolka bariga dhexe gaar ahaan colaadda Iiraan iyo Mareykanka oo warar dheeraad ah caawa ay soo baxayaan xaaladdu cirka ayay ku shareeran tahay Mareykanku waxay qirteen qasaare hor leh oo dhimasho dhaawac isugu jira oo askartooda ka soo gaaray weerarada Iiraan ay wado iyo waliba warar kale oo la xiriira duqeyntii ka dhacday waddanka Jordan saldhig Mareykanku uu ku leeyahay oo la sheegayo diyaaradaha fara badan in Mareykanka looga gubay waxa kaloo eegeena Trump oo si la yaab leh oo waliba carag ka abuurtay gudaha Mareykanka uga hadlay askartii lagu dilay duqeyntii ka dhacday Jordan iyo sheekadii ugu dambeysay oo aan kugu hayno sheeko xiiso leh intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaas aynu ku hakanno qadar xayisiin xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe weerar culus ayaa lagu soo waramayaa inay dhaceen saacadihii la soo dhaafay waxaana soo baxay warar kala duwan oo la xiriira xaaladdu caawa sida ay tahay haddaba maxaa ugu dambeeya hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in Washington ay Israa'iil ku wargelisay inay damacsan tahay in maalmaha soo socda ay sii xoojiso weerarada ay ku hayso Iiraan hay'addu waxay soo xigatay laba ilo wareed oo Mareykan iyo Israa'iil ah oo sheegaya in maamulka Mareykanka uu Israa'iil la wadaagay qorshaha la xiriira kordhinta weerarada ka dhanka ah Iiraan docda kale telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil ayaa soo xigtay sarkaal sare oo Israa'iili ah oo sheegaya in Israa'iil ay diyaar u tahay isla markaas laga yaabo in maalmaha soo socda ay dib ugu laabato dagaal xooggan oo ay la gasho Iiraan dhanka kale taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir ayaa waxa uu ka andacooday in ciidamadiisu ay si dhow ula socdaan horumarka ka socda Iiraan isla markaasna ay ku sugan yihiin heegan sare waxa uu sheegay in ciidamadu ay dabagal ku sameeyeen weerarkii lagu beegsaday magaalada Aqaba ee waddanka Jordan isla markaasna nidaamyada difaaca cirka Israa'iil ay ku jiraan xaalad diyaar garow ah taliyaha ciidanka Israa'iil ayaa intaa ku daray in Israa'iil ay diyaar u tahay inay si degdeg ah ugu laabato dagaalka isla markaasna si adag uga jawaabi doonto cid kasta oo soo weerarta wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa in Iiraan si guul leh ay u beegsatay diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo kuwa duuriyaha leh ee Mareykanka oo yiil saldhig ku yaala waddanka Jordan dhanka kale wargeyska The New York Times ayaa waxa uu sheegay in weerarada Iiraan ay dhaawac culus gaarsiiyeen tiro badan oo ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca gaar ahaan nooca Black Hawk
waxaana ciidamada Mareykanku la sheegayaa in saldhigaasi ay ku leeyihiin bariga Urdun dab oo ka kacay kadib markii la duqeeyay arbixinta ayaa waxay muujinaysaa in khasaare weyn halkaasi uu ka dhacay laakiin waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa arrintan ka gaabsatay war kale oo arrimahan ay la xiriira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay maamulkiisa kadib markii laba askari oo Amerikaan ah lagu dilay weerarkaasi ka dhacay saldhigga ku yaala waddanka Jordan isagoo diiday dhaleecaynta loo jeedinayo Trump ayaa dhimashada askarta barbar dhigay qasaarihii ka dhashay dagaaladii hore isagoo yiri weliga ma isweydiisay inta qof ee ku geeriyootay Vietnam weliga ma isweydiisay inta qof ee hal maalin ku dhimatay Afghanistan madaxweynaha ayaa ku dooday in askarta naftooda u horeen waa si hadalku u yiri sidii Iran looga hor istaagi lahaa inay hesho hub nuclear ah loogana baaqsan lahaa dagaal balaaran oo ka dhaca gobolka bariga dhexe madaxweynaha ayaa ku dooday in askartu naftooda u horeen waa sida hadalka u yiri in markaa xaaladdu ay noqoto mid ay ku difaacayaan aragtida iyo danaha Mareykanka war gordhowta soo dhacay taliska dhexe ciidanka Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa sheegay in hal askari oo Amerikaan ah lagu dilay waqooyiga Ciraaq mid kalena lagu dhaawacay kadib markii weerar diyaarad aan duuriyan lahayn lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen docda kale talisku wuxuu shaaciyay in meyd aan la aqoonsan laga helay goobtii uu ka dhacay shalay weerarka ee waddanka Urdun halkaasi oo laba askari ku dhinteen askari saddexaad ayaa la weysanaa tani weerarkaasi markuu dhacay laakiin hadda waxaa la sheegay in meyd aan la aqoonsan laga helay goobta waxaa loo badinayaa inuu yahay askarigii Mareykanka ahaa waa hagaag arrintan marka Trump cara weyn bay ka dhalisay gudaha waddanka Mareykanka waxay leeyihiin askartan geeriyootay iyo ku dhaawacmayba dad bay caruurtooda yihiin dad bay walaalahooda yihiin dad bay awlaadooda yihiin sidee u dhihi karaa meeqaa ku dhimatay Vietnam meeqaa ku dhimatay Afghanistan arrinta laakiin layaab kale waxay ahayd tan iyo markii warkaasi la shaaciyay muddo 24 saac ku dhow madaxweynaha Mareykanka ilaa baar lama saarin waxa ugu horeysay markuu warkan dhiibay iyo xafladan caawa oo ka qayb galaya koobka adduunka ciyaarta la soo gabagabeynayo Argentina iyo Spain dad badan waxay leeyihiin ayadoo askar Mareykan ay geeriyootay sidee madaxweynaha Mareykanka uga qayb gali karaa u tagi karaa ciyaar dagaal bay ku jirtaa askartii Mareykanka inuu saas uga hadlay askarna dhibanayso iyo ciyaar inuu daawado arrinta waxa la yiri si weyn ayaa baraha bulshada uga socota dood aad u adag raadiyaasha iyo telefishinadana dood ba ka socota waa hagaag inta markaynu ka gudubno waxaa soo baxday caawa faahfaahinta la xiriirta sababta u baaqday safarkii Netanyahu uu ku tagi lahaa waddanka Mareykanka arrinta waxa leeyahay waxay ka dhalatay kadib markii Trump uusan u muuqan inuu diyaar u yahay kulan uu la yeesho Netanyahu waxba isbedelayna haddaba aynu eegno sheekadan iyo waxa laga qoray waxaa soo baxaysa faahfaahinta la xiriirta warkan gaar ahaan sababta u baaqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu safarkii uu ku tagi lahaa Mareykanka waxaana la sheegayaa in la ogaaday inaysan suurtagal ahayn kulan aqalka cad uu kula yeelan karo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in dib u dhaca safarka uu la xiriiro isbedel ku yimid jadwalka aaska Senator Lindsey Graham kii geeriyooday si kastaba ha ahaatee warbaahinta Mareykanka iyo tan Israa'iil oo soo xiganaysa ila ku sugan Tel Aviv ayaa sheegay in sababta ugu weyn ay tahay fashil ku yimid dadaaladii lagu qaban lahaa kulan dhexmara Trump iyo Netanyahu wararku waxay sheegayaan in maamulka Mareykanka uu si dhow ula socdo hadallada iyo go'aamada Netanyahu iyo xubnaha xukuumaddiisa halka Washington ay aaminsan tahay in hogaamiyaha Israa'iil uu caqabad ku yahay dadaalada Trump ee lagu doonayo xabajoojin iyo heshiisyo nabadeed oo ka dhaca bariga dhexe madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa sidoo kale sheegay in xubno ka tirsan xukuumadda Israa'iil ay isku dayayeen inay saameyn ku yeeshaan ra'yiga shacabka Mareykanka si loo sii wado colaadda Iran loogana hor istaago wada hadallo in Mareykanka uu la galo Iran ila wareejada dhanka siyaasadda ayaa sheegaya in Trump uu dib u dhigay kulanka Netanyahu tan iyo inta heshiiskii June la gaaray 16 isagoo ka carooday
dhaleecaynta Israa'iil ee heshiiskaasi. Saraakiisha Israa'iil ayaa heshiiska ku tilmaamay mid halis ku ah ammaanka Israa'iil, halka sahan iyo ra'yi ururin laga sameeyay gudaha Israa'iil ay muujinayso hoos u dhac weyn oo ku yimid taageerada Trump. Eelo diblomaasiyad ayaa sheegay in Netanyahu haatan uu ku tiirsan yahay wasiirkiisa arrimaha istiraatiijiga Ron Dermer si loo yareeyo xiisada kala dhaxaysa aqalka cad ka hor doorashooyinka Israa'iil ee la filayo inay qabsoomaan bisha Oktoobar dabayaaqadeeda. waa hagaag haatan waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. Aanaaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. sheeko la yaab leh ayaan idin haynaa oo xiise leh. aroos ka dhacay tuulo ku taal waddanka Turkiga ayaa wuxuu qabsaday arooskaas baraha bulshada iyo warbaahinta. maxay tahay sababta? aynu eegno wararka warbaahinta ay arrintan ka qorayso. xaflad aroos oo ka dhacday gobolka Sirnak ee koonfurta bari ee dalka Turkiga ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo warbaahinta iyo baraha bulshada kadib markii la shaaciyay in hadiyadihii la guddoonsiiyey lamaanahan cusub ay gaareen 6 milyan oo lacagta liiraha Turkiga una dhiganta qiyaastii $150,000. arooska oo 2 maalmood socday ayaa lagu qabtay tuulada Mutaluca waxaana ka qayb galay kumanaan marti ah oo ka kala yimid gudaha Turkiga iyo dibadda. munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay ciyaarta hidaha iyo dhaqanka ee halay iyo sidoo kale waxaa halkaasi laga taagay calan weyn oo ah calanka Turkiga. si loogu diyaari garoobo martida waxaa la qalay 35 neef oo ida ah oo hadiyad ahaan loo keenay goobta. hadiyadaha la bixiyay ayaa isugu jira dahab loo hibeeyey aroosadda iyo lacag caddaan ah oo la siiyey arooska. dhaqanka Turkiga waxa weeye wax walba oo dahab iyo hadiyado kale oo dhar ah gabadha ayaa iska leh, wiilkana wax alaal wixii lacaga haddii ay tahay milyan iyo haddii ay tahay 100 wiilka ayaa iska leh. dhacdadan ayaa dhalisay dood ballaaran oo baraha bulshada qabsatay. qaar ayaa waxay ku tilmaameen astaan muujinaysa dhaqanka iyo garab istaagga bulshada, halka kuwa kale ay ku dhaliileen qarashkan badan ee lagu bixiyey arooska xilli Turkiga uu wajahayo dhibaato dhaqaale iyo sicir barar dhanka dhaqaalaha ah. lacagtii waa taa la tirinaya, waad arkaysaan. hebel meequu keenay, 2 kun buu keenay, 100 kun buu keenay, 1 milyan buu keenay. lacagtii liis baa la qaatay, waad arkaysaan. waa la qoray, qalin warqad baa la qaatay. arooska laftigiisa lacagtiisu tirsanaya, meesha soo fariista, meeshuu fadhiya. gabadheena waxaa la wixii dahab ah baa lagu helay. waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan, barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbinayno, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ku horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.